weli ma adeegsatay applicationka Zoom Meeting app. Applicationka Zoom ayaa si weyn dunida looga adeegsaday kadib markii uu xanuunka coronavirus sida baan ugu faafay caalamka. Shirkadaha ganacsiga, jaamacadaha, waaxyaha kala duwan ee dawladaha ayaa adeegsaday applicationkan si iyaga oo aqaladooda jooga ay u kulmaan. Haddaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in applicationkan loo adeegsado in wax lagu basaaso. Sida uu sheegay website-ka Business Insider, dawladaha Canada, Mareykanka iyo Taiwan ayaa ka mamnuucay shaqaalahooda inay adeegsadaan appkan. Business Insider ayaa sidoo kale sheegtay in xubnaha Kongareeska Mareykanka lagula taliyay inaanay isticmaalin applicationkan. Si la mid ah shirkadda Google ayaa shaqaalaheeda uga digtay applicationka Zoom iyadoo ku amartay inay isticmaalaan application kale oo u dhigmo oo la yiraahdo Meet. Digniinaha ayaa soo taraya halista ay wajihi karaan dadka adeegsada ayaa ah in dhaqdhaqaaqooda lala socon karo. Applicationo badan ayay khubarada ammaanka internetka ka digeen adeegsigooda, waxaana ka mid ah AdBlock Focus, kaas oo ay shirkadda Apple sheegtay in dukaankeeda applicationada ay ka saartay iyadoo ku sheegtay in wax lagu basaaso. Si la mid ah shirkadda Google ayaa iyana saartay applicationka Mobile Data. Labada shirkadood ayaa sheegay inay baaritaan ku samaynayaan applicationada kale. Caalamka tiknoolajiyadda ayaa wajahaya mawjado abis ah kuwaas oo wax lagu basaaso. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa iyana ka digay khatarta abiskaas, waxayna si toos ah dusha uga saareen dawladaha waaweyn ee danaha istiraatiijiga kale caalamka iyo talisyada kaliya taliska ah ee ka jira qaar ka mid ah wadamada caalamka. Sababtana waxay ku sheegeen inay doonayaan la socodka wacyiga dadyowga ay maamulaan. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku basaasaan mucaaradkooda ku sugan gudaha iyo dibaddaba. Shirkadda Logout ee qaabilsan amniga telefoonada ayaa dawladda Syria ku eedeysay inay samayso barnaamijyo wax lagu basaaso. Bastian Pop, oo ah khabiir dhanka ammaanka u qaabilsan shirkadda Logout, ayaa sheegay in 100% ay xaqiijinayaan in taliska Bashar al-Assad uu ku lug leeyahay barnaamijyo wax lagu basaaso.